بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلي iyo barteeni degalka aynu ku lahayn mareegta YouTube Ismaaciil Said fadlan hadaad ku cusub tahay channel ku soo dhawow rukumo oo wehel ka dhigo waxaynu maanta dhowr kelmood ka oranaynaa dhambaalkan bulshadu isla dhex mareysay dhaguugiisu dhagaheena soo gaadhayo dhambaalkaas oo dhowr dhinacba dhaayaha lagaga hayo waa dhadhaarka koobaade dhismihii dhallaanka iyo dhalinta ayaa la leeyahay dhaqankiiba laga siibayaa shaar kale iyo dhar kale ayaa dharbaan lagaga dhigaya waa dhadhaarka labaad ee halkii lagu dhisayay dhaqanka ummadda iyo jiilkan soo koraya ayaa isagana la leeyahay dharkiiba laga xayuubiyay oo dhar kale ayaa isagana dharbaan iyo dhaban hays lagaga dhigay waa goobaha xarumaha lagu tilmaamay dhaqanka laba dhinacba waynu ka dhuganaynaa hadduu ilaahay inoo idmaayo waa ta koowaad ee xarumaha dhaqanka odhan mayno dhammaantoodba dhaqankii waa laga siibay oo dhaqan kale ayaa lagu dhadhaaray oo laga dhagax dhigay waxaanu leenahay wixii dhaqankeena waafaqsan ee diinteenana waafaqsan wixii dhaqankeena ah ee diinteena waafaqsan dhadhaar buu inoo ahaanaya meel aynu ku dhex dhigano oo ubadkeena iyo dhalinteena aynu ku doodino wixii dhegxumo ku ah ee dhabanka ubadkeena dhaawac iyo dharbaan soo gaarsiinaya taasaynan marnaba ogolaanayno yac ka leenahay wixii dhaawac keenaya iyo cidii wadaba meesha iyo dadka jooga marnaba in la duraayo oo shaarkooda dhigdhig lagu dhamaajeynayo taayada marnaba dhigihiina iyo dhuganin oo dhaayihiina yeedan ku bininin waxa laga hadlaya meesha la leeyahay ha laga saaro dhirbaaxay nagu noqotay oo dhaawac bayna soo gaarsiisay dhaqankeena iyo dhaqankeeni bay dhaba kale marisay waxa weeyaan wixii la soo dhex gelgelinayay lagu soo dhex dhumsiinayo ama la dhex dhubinayo aynu ka saarno aynu iska shaandhayno iyadoo dabeeto aan lahayn wax dee la yidhaahdo waxaasaa dhaqankeennii wax yeelo dhaawacay ama dheeheenii iyo biyaheenii wejiga dhuraaya aynu markaa ku dhaqanno dhadhaarka labaadno waa barta dhalinteenna iyo dhallaankeena lagu doodiyo oo laba dhawaaq baa kasoo kala dhaguugayo oo dhegaheenna ku dhacaya dhawaaq waxa uuna leeyahay halkii dhallaankeena lagu doodinayay ee lagu dhisayay kuwii mustaqbalka dhagax dhigi lahaa dharkoodii baa laga siibay dhaqankoodii baa laga xayuubiyey dheehii dhabankooda dharbaani soo gaadhoo la dhaawacay dhar kale oo shisheeyaa lagu dhamaajaynaya darafka kaliya dhinaca kalena waxay leeyihiin halkan ubadkayaga ayaa lagu doodiyaa laguna tarbiyada dhaqankooda iyo dhalkooda loogu ilaaliyaa dhamaajadan aad ku dhamooqaysaan iyo dharbaantiin dhaawacan dhabanka dhallaankayaga aad ku duugaysaan nooga daaye dhawaaqa dhegihiina dhaguugiisu uu soo gaadhayaano waa waxaad iska dhugateen annagaa dhaayaha ayaga kusoo dhugan iyaguna leeyihin labada dhinacba waxaynu odhanaynaa dhawaaqa bulshada kasoo dhex yeedhaya odhanaya halkii dhallaankayaga lagu doodinayay dhalintayada lagu dhagax dhigayay dhadhaaradii loo rukumay waa laga dhagax qaaday oo dhagax kale oo dhammaajale baa lasoo dhigay oo dhar kale aanaan lahayn baa loo tolayaa dhaqankiibaa laga midho siibay qoladaa waxa ka hadlinaya ee ka dhawaajinaya waa kalgacayl ay dhulkooda iyo dalkooda iyo dhaqankooda iyo dhalintooda doodintooda ay ka qabaan qolada kale ee leh maya ubadkayaga halkan waa lagu barbaariyaa oo dhaqankii iyo dhaayahooda la dhisaa iyagana waxa ka hadlinaya waa dhirbaaxo ku dhacday dhabankooda qofkana haddii dhirbaaxo dhabankiisu uu soo gaadho waxay kaga tagtaa waa dharbaan inuu damqadaano waa mid dawwa labada dhinacba midna ma qaldana sida ay dhawaaqa iyo dhaguuga usoo kala gaadhay ay u kala dhugteen ayuunbaa wax kala dhadhaartay oo dhagaxa iyo xajaarka dhexdooda dhigtay labada dhinacba waxaanu leenahay war wixii dhaqankeenna iyo dalkeenna iyo diinteenna dhaawac ku ah ee dhaayaheenna iyo wejigeena iyo dhabankeena dharbaan soo gaadhsiinayo inaynu iska wada qabanno aynu awood iyo quwad iyo arrin iyo adduun mid walba iskaga qabanna waa tu waajiba wixii dhaawacaya dhaqankeena ee dhalanteedee laynoo soo dhoofinayo ee laynoo hoos marinayo aynu ogaano dad aynu ahaano noolnool oo soo jeeda oo dhaqankooda iyo diintooda ku dhegan oo aan loo dhamaajin karin oon dhaawac laga soo gaadhsiin karin waxa aad dhawaaqu u soo baxayaa oo la leeyahay dhisidda iyo dhagax dhigga hablaha ayay kasoo horjeedaan dadka sidaa u hadlaya kuwaana waxaan ugu jawaabaynaa aanu leenahay hablaha anagu
cadowgooda ma nihin habluhu ama dumarku ama gabdhuhu waa hooyadana dhashay macaan waa walaasha nala dhalatay waa marwada noo dhaxday waa taanu dhalnay inuu dhoodino waa dhinac dhiigayaga iyo dhinacayagoo marnaba nagama go'an dhisidooda iyo habeentooda iyo koolintooda iyo dhoolintooda iyo dhaqankooda ilaalintooduna waa taanu dhafarno aanu had iyo habeen dharaar walba usoo jeedno ee ha nagaga dhigina annaga dharbaan dhabanka kaga taalla hablaha marka aanu ka hadalno dhaqankooda markaanu dhaqankooda aan dhuganaynayo wixii gamuun ku soo ganan baanu ka leexinaynaa yay idinla muuqanin inaanu noqonay dhammaajo ku dhegan hablaha dharkooda wasalaamu calaykum